بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وحن كان لنا موضوع اللي يراهدو زكاة الفطر أما دقرصونك فضلك أيلاده هي حقونك يقارت الله بحنايو زكاة الفطر أما دقرصونك وزكاة الله بحيو صونك مركو رمضان وصونك أي لصعتها وحين واجبتها معناته قدام بيس صونك وهبينك بش شوال أما عيدة هبينك أي بلانتو xilligaas ay waajibtaa waxayna ku waajibtaa qof kasta oo muslim ah oo xilligaas jooga ama ha yaraado ama ha weynaado waxayna ugu waajibaysaa qofku inuu haysto 24 saac yani habeen iyo maalin cunto oo cuno iyo wax ka dheeri ah qofkii marka intaas haysta way ku waajibaysaa inuu bixino waa laga rabaa laakiin qofkii intaas aan haysanin oo maalinkaas iyo habeenkaas cunto ka dheeri ah oo asagu uu leeyahay aan haysanin asaga laga ma rabo marka bulshadii waxay noqonaysaa labo mid asaga laga rabo oo haysta iyo mid asaga ayna ku waajibin oo u waajibtay oo la siinaayo labadaas ay noqonaysaa yaad bixinaya ama dadka ka bixinaya waxa bixinaya qofka mas'uulka ah wuxuuna ka bixinaya inta qof ee asaga ama kuwii dhalay ah oo hooyadii iyo aabihii ah ama asaga uu dhalay oo caruurtiisa iyo xaaskiisa walaalihiisa iyo dadka qaraabada ah ee la nool yani uu ka bixin karaa oo ay ku ansaxaysaa sadaqana way u noqonaysaa laakiin kuma waajibayso marka guriga dadka yani Soomaalidu waa dad isla nool dad ayaa guriga ku wada nool dadkaasi maadaama yani gurigiiba ay ku nool yihiin oo cuntadii qayb ay ka yihiin gabadhaha mesela ama shaqada qabta ama guriga yani dadka qaraabada ay la jooga oo kale oo aan ahayn dadkii biilkiisa uu ku waajibay ayagana qofkaasi Ilaahay wax siiyay uu ka bixin karaa asna ajir ayay u tahay ayagana kumuna waajibin oo ayagu hadeen waxba haysanin laakiin hadii cid ka bixinaysa ay helaan way fiican tahay in laga bixiyo maxaa la bixinayaa marka waxa la bixinayaa horta wax walba asaas ay leeyihiin nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa zakadan faral yeelay ama waajibiyay nabigu wuxuu waajibiyana yani waxay la mid tahay sidii tii Ilaahay uu waajibiyay oo kale nabiga Ilaahay wuxuu siiyay awoodda ah in uu wax jideyn karo وساسا إلهي وحونا يري من يدعي الرسول فقد ضاع الله يعني رسولك قفك أضيعه ووحو جديه وهلا سمير هذا هيجي هذا فقد أضاع الله إلهي أيو أضيعي إلهي أمر كيس أيو قاتي مركز زكاة الفطر رسولك يا جدي صلى الله عليه وسلم وحونا جدي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام سوس أو راشنة raashinku marka qayb ayuu nabigu sheegay oo tilmaamay oo xilligiisa raashin aha raashin ka dambeeyay oo gadaash soo baxayna wuu jira sida raashinka hadda inaga aanu badannahay ee bariiska la yiraahdo oo xadiidka markii la akhrinayo bariis kuma jiro laakiin maadaama dadka cuntada ay cunayaan ay tahay mid ugu badan oo yani xaafadii laga kariya cid diidaysa ama maanta qadada sidaan rabay ma dhahaysa aysan jirin bariiskaas ayaa loo badan yahay bariiska ayaa marka noocyo kala ah mid oo yani qiimihiisa hoos u jiro iyo mid oo sare iyo mid dhexdhexaad ah dadku waxay u badan yihiin marka midka dhexdhexaadka midkaas dhexdhexaadka ah waxa laga bixinayaa 2 kiilo iyo bar ayaa qofkii laga rabaa 2 kiilo iyo bar hadii qofkii laga rabo oo raashinkaas oo bariiskaas ah bariiskaasi waa la soo iibinaya tabcan oo yani dukaan baa laga soo gadaya qofka bixinaya zakatul fitr ama dagarsoonka meequu jooga qiimihiisu wuxuu joogaa halkii kiilo 30,000 oo shilin Soomaaliya ayaa magaaladeena la gadaa marka 2 kiilo iyo bar meeqay noqonaysaa yani waxay noqonaysaa 30 iyo 30 iyo kii barkaha oo 15 waa 75 ayay noqonaysaa 75,000 oo shilin Soomaaliya hadii loo bedelo dollar hadii loo bedelo waxay noqonaysaa $3 marka qofkii sida dhexdhexaadka oo bariiska xamzaha la yiraahdo oo 2 kiilo iyo bar ah ama qiimihiisa oo $3 ah ayaa qofkii zakatul fidrigiisa uu noqonaya dadka midka heerka sare ee ka sii qaalisan isticmaalay basmatiga la yiraahdana kiiladiisi 1.6 ay tahay markii lagu dhufto 1.6 laba iyo barkii oo zakatul fidriga uu ku baxay $4 ayay noqonaysaa bixinta la bixinayana yani qof walba awoodiisa iyo dhaqaalihiisa intuu leeyahay ee lagu bixiyaa dadka gudaha hadaan dhahnay ama $3 ama $4 ayay bixinayaan zakatul fidriga oo ku bees gareysan raashinka yani lagu soo gadaay waxa aan u leenahay yani qiimahaasna waxay tahay markii raashinka dukaanka looga soo gado qofka miskiinka waxa laga yaabaa inuu baahiyo kale uu qabo oo u baahan yahay inuu waxyaabo kale uu ku qabsado wuxuu marka qaar kood dhacaysa inuu dib ugu celiyo dukaankii oo uu yiraahdo zakatul fidri la soo siiyay lacag ayaan u baahanahay dib iiga celi lacagta marka laguma soo celinayo intii qofkii hore laga soo siiyay ama $3 ama $4 ahayd wuxuu leeyahay qofka dukaanlaha waxaan ku siinayaa $2 aan ku siinayaa meeshii ama 3 ay ka ahayd ama 4 ay ka ahayd halkaas khasaare ayaa wuxuu ugu jira qofkii miskiinka ah ee asaga asalkiisa loo jiday zakatul fidrigan dukaanlihii ganacsadaha ayaa ka faa'iideysanaya oo lacag meeshaas ka sameynaya si ayna saas u dhicin waxa fiican in la tashado miskiinka
oo asaga dantiisa iyo baahidiisa lagu qiimeeyo haddii marka raashinka baahi uu qabo oo wuxuu cuno uu leeyahay raashinka in la siiyo hadduu raashin helayo laakiin waxyaabo kale oo baahihiisa ay jiraan oo u baahan yahayna oo uga baahi badnaan lahaa in qiimaha lagu siiyo in $3 la siiyo oo reerkii maalan inta qof ay yihiin oo 3 loogu dhuftay yani qof bay ma usoo bixi karta $20 $30 $40 ayaa dhici karta dad inay usoo baxaan marka intaa in la siiyo oo qofkii uu marka maalinkaas ciida wax ku samaysto saasana qofkii bixinayna oo yani u yasiran oo u fudud kii la siinayna xamaali iyo meel geengeen kama rabtee si fudud ayuu wixiisa ayuu u qaadanaya marka inta la bixinayana waa 2 kiilo iyo barkaas ama qiimaheeda oo saasa dadkeena banaanka jira ayagu dhaqaalahooda yani waxa soo gala ayuu ku beesgareynaya ayay intaas in ka badan ayay bixinayaan culimada meelahooda joogtana way ku mahadsan yihiin way u sheegaan inta ay tahay Mareykanka oo kale waxay tilmaameen $12 in qofkii zakaatul fidrigiisa ay tahay Canada waxay tilmaameen inay tahay $20 oo Canadian hadii la sarifana oo Mareykan loo bedelana ay $15 ay noqonayso marka waxay ku xiran tahay dhaqaalaha dadka bixinaya sida ay tahay marka haday dadkaas soo dhiibtaan marka oo ay Soomaaliya u soo diraan oo ilahan zakaatul fidriga naga bixiyo kuna soo bees gareeyo mesela asaga wixii laga rabay ama uu 15 ku soo bees gareeyo oo dhowr qof oo 15 ugu soo dhuftay uu yiraahdo zakaatul fidriga wakaasi qofkii loo dhiibay waa inuu intii ku bixiyo oo dadkii sidii ku siiyo hadii laakiin yiraahdo ma $3 baan uga dhigi oo halkaas waxba ay ka soo haraayo taas lama rabo qofka zakadiisu waa in go'an oo si ugu waajibtay iyo meesha uu joogo ay kaga waajibtay ay tahay waa in intii uu soo dhiibtay oo zakaatul fidriga in la siiyo haduu ka sii badiyo oo inta mesela $50 laga rabay intuu kontonkii zakaatul fidriga soo dhiibo konton kalena ku soo diro oo yiraahdo waa xaqul ciid iyo waa dadka masaakiinta hal la siiyana ayadana waa sidaas yani diinta islaamku waa diin dadka u danaynaysa ilaahayna uu yiri faman tadawwa khayran فهو خير له حلقة لبحنايا وانت لا آذن صلاة عيد وانت لا آذن عيد مركي الأرك بشي يعني حلقة أي تاي وأنا يسنكدب مرين صلاة عيد هذا يكدب مرتو صدقة عادة ينقونيسا علماء قالوا حيل رمضان كمرة دو قالوا والله سيهر مريك هذه باهي مركز أي جرتها لكن حلقة يدو ومرك عيد الأرك بشاس أي دلاتو انت صلاة عيد اللي جسوا تكناي انت يالو بحنايا فضل أي إلى هاي علماء وحيد المامين آيادا إن الزكاة الفطر كهالليسو قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وحال يبان قفك الزكاة اسكبحية مقع إلهي حسوء وتكبير عيد لقاضي الله أكبر كبير الله فصلى تكشد أنا واتي عيدي السنة عيد هيد ولا تكنايو مركا آدياد أي دين تو أمانتي زكاة الفطر إن الاسكبحية مدقر صونك قفك صومنانا دم بداف أي أطهايا وحي صونك سكحو ماذا أي الله قد عفايا تدك مساكين تإلا سيينا مالين تاس أي مالين فرحاديات أو مدونا وفحصنتهاي أي أيغنا دين عوضا كفرحايان إلهي إنك أقبله صونك إيا صلاة إيا صدقادي رمضان كا أجر كيسي إيا إلهي نسيو كون نارت لغو حريي أو جنة واجبتين إلهي نقدره انتاس اندرسي نكسو كوبينا هذا وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته